madaxweyne ilaahay baa meesha ku saaray dad muslimiin aynu nahay in badan baad soo tacabtay maanta inaad tiraahdo cid lama tashanayo oo aqoon-yahankii aada fogeyso oo kuwii kartida lahaa aada fogeyso oo kuwii dalkan wax ka dhigi lahaa aada dibadda u tuurto oo aada urursato dad aan kula hadlayn oo aan waxba kuu sheegeyn taas waata dadka iyo dalkuba uu ku baaba-ayo waxaanu kugula talinaynaa kuu sheegaynaa munaasabadda ciidda darteed war cabinet wax kuu sheegi kara oo ku tilmaami kara oo khibradooda iyo aqoontooda iyo daacadnimadooda leh imise professor baynu leenahay guda iyo dibadba maanta jooga oo aan lacag kaa dooneyn bal volunteer kuula shaqaynaya haddii dalka la dhisayo subxaan allah maantana mushahaar wanaagsan waynu u awoodeynaa waayo 370 ilaa 90 milyan ayaa miisaaniyadeennii lagu sheegay wadatashigu waa halka maanta ay u dhimatay weeye waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida abu hurayra uu wariyey wuxuu yidhi maa kaana axadu aksara istishaaratan lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam lama hayo qof ka tala badsi badnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yaab badan cumar iyo abubakar buu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa labadii saxaabi ugu aqoonta badnaa ugu kartida badnaa ee labadiisii wasiiro waaweyne ahaa low ijtamactumaa calaa shayin maa khaalaftukuma anigu waxaan go-aaminayaa un labadiinu waxaa isku raacdaan ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam war dadka la tashaan leyna madaxweynaha war kabinetkan maanta joogo wax ka bedel sidan waxba inooguma shaqaynayaan ayaan runtii madaxweynaha leenay waxyaalaha runtii loo baahan yahay maanta waxaa ka mid a in dadkii la ururiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi almu'minu alifun ma'luuf walaa khayra fii man laa ya'lif walaa yu'laf mu'minku waa ka dadka ururiya hogaamiyuhu ee lagu soo ururo walaa khayra fii man laa ya'lif khayr ma laha mid aan dadka aanay ku soo ururin oo aan dadka ururin waa labada sifo ee amiirku leeyahay mid lagu ururo oo dadka ururiya dalkan halkaa wuxuu ku soo gaadhay talo ummaddu ay leedahay waxaanu ku leenahay madaxweyne dadka ururi maanta dadkii aad bay u kala fogaadeen waxaanu leenahay war haddaad doonaysa madaxweyne inaad guulaysato war dadka ururi oo ku ururi wanaagga oo ku ururi wax wada lahaanshaha oo ku ururi cadaaladda oo ku ururi waxooda inaad sidooda si cadaalada ugu qaybiso ayaanu runtii leenahay madaxweynaha waxaa runtii xusid mudan ururintaasi weliba dadka lasii ururinaya waa ahlulcuquuli ahlulxalli walcaqli waa dadka waxna xidha waxna gunta waa halabuurkii waa qof wal oo aqoon leh aqoontii takhasusaad bay leedahay qof walba aqoonta uu leeyahy uga faa'iideyso kuwaasi waa kuwa nebigu calayhi salaatu wasalaam ururin jiray saxaabadu markii ay ka waramayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam 124 buu la hadlay nebigu fii xajati alwidaac alimaam adahabi fii kitaabi siyar waaclaami nubala wuxuu leeyay 95 oo saxaabi walba waxa uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam anuu igu jecel yahay bal 124 oo saxaabi oo nin walba khad ku haysto adigana maanta madaxweyne kuwii kugu soo tabacay kuwii hantida badan ku geliyey kuwii naf iyo maalba kuu horay eed albaabadii ka xidhatay iska daa kuwii kale aqoonta lahayd ururi lahaydoo dadkaaga ururso oo dadka ururi ayaanu leenahay madaxweynaha waxaa runtii aan kala hadlayaa madaxweynaha arrinta dhaqaalaha dhaqaaluhu waa asaaska nolosha low kaana alfaqru rajula laqataltuhu cali bn abi aalib haddii faqrigu nin uu yahay anaa u bixila idinka khaarijinaa buy islaamku wuxuu la dagaalamay faqri waxay gaadhay islaamku wakhtigii dadku ay toosnaayeen in ilmuhu maalintuu dhashay mushahaar loo qoro cahdigii cumar bn khataab radi allahu canhu
nidaamka dhaqaalaha islaamku kaas waa in wax loo qoro meel lagu daryeelo ilmaha dhashay madaxweyne waxaan leenahay dadkii way soo ootay waa lagu baktiyayaa dalka dhaqaalaha furfur dowladdii ka horeysay biqaddi nadar can akhtaa'ihaa waxa weeye dhaqaaluhu circulation buu ku jira dadku rajo ayay ku noolaayeen waxbaa la kala iibsanayey dhaqdhaqaaqu wuxuu ahaa ful buu ahaa waxa weeye imika 40 sannadood baan shaqaynayey waa ma garatay dhaqdhaqaaqu aada buu wanaagsanaa laba sababood baa ahayd dad wada tashanayay ahaayeen dad waxa yaree dalku leeyahay laba meelood dadka ku celiya meesha xataa ay qaataanna madaxweyne dalka dib wax u geliyay ahaay maanta madaxweyne wixii baaday kugu warneen baaraka allahu fiik waxaan ku leenahay dadkii way soo ooteen dhaqaalaha furfur aladiina yaknisuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim kuwa iyagu dahabka iyo lacagta kaysanaya ee aan jidka ilaahay ku bixinayn fabashirhum bicadaabin aliim hantida ummaddaa leh islaantaa indhaha la ayaa laga qaadaa ee maanta maalin walba la jiidhayo ee kuwa sandaqadaha ku nool ee maalin walba laga duminaya iyadoo aan talo loo keenin baa laga qaadaa marka waxa weye nidaamka dhaqaale ee dalku waa khalkhal buu ku jiraa madaxweyne waxaa loo baahan yahay in dhaqaalihii sidii hore haddaanad waxba ku soo kordhinayn nidaamkii kaa horeeyey raac haddaanad ogeyn cid u diro dalkii waa lagu baktiyayaa subxaan allah baahidu hadday badato nabadgelyaday wax yeelaysa baahidu hadday badato sistamka nabadgeliyo iyo qaabka aynugu dhaqmayno oo dhan ba wax iska bedelsa guryaha la yskugu soo daadan doono waayo nina noolaan maayo nina baktiyi maayo subxaan allah qofku bal qur-aanka u fiirsada faman idura gayra baaqin walaa caadin falaa ifma caleyh waxaa la yidhi qofka loo dhibgeliyo meyd ee gaajo u baktiyaya meydka iska cunaa la yidhi bal gaajadii sidii loola dagaalamay islaamkii meydkii baa qofkii loo baneeyey xataa hadduu qof bini aadmiye yahay maxaad u malaynaysaa qofka dhimanaya ee baktiyaya ee agtiisana hantidii ummaddu ay ag taallo waxyaalaha keenay infilaadka amnigay ka mid tahay dhaqaaluhu marka uu xumaado circulation aanu jirin rajadiina ummaddii ay ka lunto madaxweyne waxaan kuu sheegayaa maanta dadku xamar oo laysku cunayo oo waxaa ka taagan aada og tahay oo maalin walba qarax ka dhacayo ayaa rajadii markii ay yaraatay intii madaxweyne aada joogtay ayaa waxay gaadhay in halkaa loo hanqaltaago waxaasoo dhanina dunidu qur-aanka iyo xadiis camal sheegay oo aan odhan darajatulciliyiin darajatu shuhadaa darajatu sidiiqiin markaad waxaa qabato waxaasaad helaysaa darajatu sidiiqiin waxaad helaysaa jannada noocaas waa rajo waxaanu ku sheegnaa madaxweyne rajadii way luntay intaad joogtay marka waxaa la doonaya dadka inaad rajo u abuurto madaxweyne ayaa laga doonaya waxaan ku soo ururinayaa arinta dhulka madaxweyne dhulkii dhibaato badan baa ka taagan weliba dhulku dalkii madaxweynihii dalkan lala dagaalamay ee maxamed siyaad barre dalkan wuxuu ka tegey iyadoo intaasoo kilomitir ayaa magaaladan hargeyso dangoodu ka tegey maantana 4 jiho 20 kilomitir baa looga baxayaa oo taaka dangoodii aanay jirin waa lagu kala tegey waxaa inagu soo korodhay imika madaxweyne arrimo adiga lagu nisbeynayo oo ah in la qaato wixii dadka ka dhexeeyey iyadoo magacaaga la isticmaalayo maxaa ka mid a 600 qoys ee halkaa ka cabanaya 40 sanood 30 sanood 20 sanood madaxweyne deganaa ee wada dadkii aada mas-uulka ka ahayda ee uu ah ehelkaagii ah waxaa la mid a dadkan madaxweynayaashii hore ay go-aanka la qaateen ilaa aduguba wixii aad maanta go-aamiso
iyadoo aan sharci loo raacin haddii wax walba la yidhaha waxba kama jiraan dhibaatadeeday leedahay oo aanay wixiina wax feera noqon dadka wada gaadha aanay noqon arrintaa dhulkana inaad wax ka qabato oo adigu madaxweyne aad iska bilowdo ayaanu kugula talinaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu